bannaanbaxan ay sameeyeen shacabka degmada taariikhiga ah ee Taleex ayay uga soo horjeedeen maamulka Somaliland waxaana ay sheegeen inay garab taagan yihiin midnimada Soomaaliya isla markaasna ay doonayeen dad ka soo horjeeda Soomaalinimada shacabka ayaa ku dhawaaqay eray ka dhana maamulka Somaliland sidoo iyadoo qaarkood ay hadallo sugaan ku cabirayeen dareenkooda ku aadan midnimada Soomaaliya inay ka mid yihiin shacabka Puntland shirka loo soo dareeray dadkii babaxay uma damqanayaan dhoorkay daldalanayaan dhoorku waa lacagta Somaliland oo duruuf ay haysatay dood ka dhiganayaan ragaad gaadayso meel buu geediyahay warada geediga ayaan ka gabood fadhiya oo geed qalaalay baa tahee muufadaada guro inaan dahabkeena gaynu go'aan ku yahay inaan lacag soo gurnaabu go'aan ku yahay garaadla waa nacnaaba go'aan ku yahay garaadla waa nacnaaba go'aan عقل قويقا أنيقو يربان عارف وهاي عقلي قويقا وانكا عبيرا عميلة تاغن عمار يالبان وطا عمرية بارودي إركا وحانكا سروقن عبدي وعيدا مظنيتو ننكي أنكا عرارينا وانكو عوراياي حقاتنا عم باشوكي عبي ومراقي كشيغيا aan ilaahay aan marakahay in nimanka lagu sheegay jeegaanta oo hogaamiyaha u yahay ninka mujaahidka sheegtay gaalada laba u dagaalameen waxa uu mujaahid ku sheegtay dhiigayaga way wuxuu mujaahidka ku sheeganaya oo waliba leeyahay nagu raaci mayno anagu nin dhiigayaga intuu cabay oo dhiig doora oo dhiig miirata oo magac kula baxay dhiigayagi anagu raaci mayno bilaa dhiigna ma nihin bilaa damiirna ma dhiigayaga iibsan mayno annaga mujaahidiina annaga la dagaalanay ee daraawiisha annaga hoygi halganka Soomaaliyeed ah annaga Ingiriis la dagaalanay annaga gobolnimada Soomaaliya u halganay annaga Soomaaliya waxay wax ku noqotay u halganay oo soo saarnay Soomaaliya annagu halgamayaal baan nahay annagu ilaahay marxaati waxaan ka nahay beesha caalamka waxaan u sheegaynaa iyo inta arrimaha Soomaaliya danaysa iyo jaamacadda Carabta iyo maxaan ku daa madowga Afrika in ninkaas uu ka wado Soomaaliya ama geeska Afrika uu ka wado shaqaaqo iyo dhibaato ku soo noqota misna oo qabiil la sulaayo dagaal ahliya ka dhaco ninkaas ka shaqaynaya hana laga qabto wixii Soomaaliya arrimaheeda daneeyo oo maxaan ku yiraahdaa dhiig ku yaalaha ka anaga qabteen annagu dagaal baanu diyaar u nahay dhiigayagana iibsan mayno annagu Soomaali baanu nahay Puntland baanu nahay halgamaa baanu nahay daraawiish baanu nahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhulka bixiya ilaahay baana dhulkayagana nasiya ilaahay baana ugu beeray ilaahay baana dhulka bixiya laakiin Ingiriis dagaal dhulma bixiso dhulkayagana male waana dhulkan kula dagaalanay oo ka xoreynaa kayga sidaa هذا الذي وحي يري محمود راي هذا انتي انا اورن لهي وهذا الكدما هذا الكويس كده ما هادي ليرا انتي سيبان تاغير سنه او جيرتا haduu xaga dawladnimada ka hadla Soomaaliya taariikhda ya Sayid Cabdullah Xasan uu soo maray wuxuu kala soo maray Siyaad Maxamed Barre haliyay Soomaaliyeed wuxuu su'aal weydiiyay Muuse Bixi taasaan aad iyo aad maartay ugu bogi wuxuu leeyahay bal Muuse wata markii hore xagee maxaad ahay xagee soo joogtay xagee ku ismaray isirkaagu si xagee aha waa su'aal aad u culus xagee maanta sheegaan baan ahay sheegaan tani masawirkan cirka ku dheehan baad istirwaa isku sawirtoota oo taana ma ilaahnimo baad basheeganaysaa oo nigibri baad tahay waxba ma ka suura gelaya waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed sidoo wadaygu hore u sheegay annagu Soomaali baan waa Taleex meesh Afrika oo dhan baa halkan ka toostay iyo hurdadii kaga toostay Siyaad Maxamed Barre 1945 waa meeshii Afrika oo dhan ugu maartay toosiyuu riisay Sayid Cabdullah Xasan Dawiya isaga weey adduunyada waa ogtahay taariikhdu ku qoraya gaalada dhan baa haysa waa meeshuu ka doortay oo u doortay
markuu marayba Soomaaliyana waa meeshuu rugniga biday dal ahaanta iyo dad ahaanta weli dadkii waa ku dhaqayay dhalashay dadkii baa sii dhaqan waxaan u dagaalanay oo dhiigayaga u daadinay midnimada Soomaaliya cid kasta oo aaminsan midnimada Soomaaliya annagu xil baanaan rabin xisaab kalaanaan rabin xoolo kalaanaan rabin waxaana deeqda dadka yaga degan deegaanka oolstool iyo sanaag iyo cayn waxaana deeqda midnimada Soomaaliya waxayna nagu deeqdaa waataanu u dagaalanay 12 sano u dagaalanay maanta waxaanu cawradiinni baanu bannaanka keenaa maryahayaga wadi ka qaad qadar maxamed puntland TV talax